xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow oo qaar ka mid ah dalalka Afrika ee Soomaaliya dariska la ah shirar kala duwan uga soo qayb galay ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Cabdullaahi Colaad Rooble iyo mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa ugu horeen ka hadlay kulan magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya uu kula soo qaatay wasiirka warfaafinta dalka Itoobiya kaasoo heshiis dhinacyo fara badan taabanaya ay ku soo kala saxiixdeen wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya iyo Itoobiya aniga iyo wasiirka warfaafinta dalka Itoobiya wada hadal dheer aan qaadanay wax badan ka wada hadalnay heshiiskan kala saxiixna markii dambe oo ka koobnaa ilaa 12 qodob heshiiskaas oo ay noqon doonto golaha wasiirada la geeyo kadibna baarlamaanka la marsiiyo diilaha heshiiskaas wuxuu ahaa in labada dal ay wada shaqeyntooda si horusi socoto in barnaamij oo jiro 6 bilba laba barnaamij la kala qaadanayo iyaguna ay TV-gooda raadiyooda halkan ay ka qaadanayaan anagana sidoo kale aan TV-geena raadiyooda laba program ka soo qaadan wadankooda kuwaas oo dhaqanka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada la isdhaafsan doono waxa kala jiri doona tababaro capacity building training la isdhaafsan doono labada wadan waxa kale oo jiri doona iyagana anagana warka toos waxaan u qaadan doonaa news agency-gooda official-ka anagana waxay ka qaadan doonaan wararka soona marka waxaan dhihi karaa wada shaqeynteedu hadda aad u wanaagsan tahay sharcigaas haduu hormar laga ansiyo baarlamaanka golaha wasiirada waxaan dhihi doonaa waxay noqon doontaa wax wanaagsan oo labada wadan wada shaqeyntooda si runtii hore sii socodsiiyo sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegay in booqasho ay ku tageen dalka Jamhuuriyadda Djibouti uu kula soo kulmay wasiirka warfaafinta dalka in walaalaha ee Jamhuuriyadda Djibouti kaas oo uu sheegay inay ka soo wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin sidii warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xafiis ay leedahay looga hirgelin lahaa wadankaasi wasiirka warfaafinta Djibouti aanu wada kulanay kulan dheer aan qaadanay barnaamijyadan ka wada waxaa kamid ah sidii Djibouti nooga caawilada waxyaabo fara badan wasaaradda warfaafinta ay u baahan tahay horena noo caawiyeen walaalaha Djibouti runtii iyagoo waliba arrimo gaar halkan u joogo ay kamid tahay dalka ay cadawga ka xoreeyaan waxaana jiri doona shir dambe oo aan Djibouti u tagi doono oo aan madaxda wasaaradda qayb kamid ah wada doono kaasoo aan ka wada shaqeyn doono sidii studio loo dhisay Djibouti arintan aad soo dhaweeyeen gacan naga sii doonaan dilaara ugu dambeyn wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa ugu baaqay warbaahinta Soomaaliya inay ka shaqeeyaan horumarka dalka isla markaana wararka iyo barnaamijyada ka baxa ay noqdaan kuwa ku qotoma maslaxada dadka iyo dalka Soomaaliyeed runtii warbaahinta dalka aan runtii u baaqaa inaan wada shaqeyn yeelano in laga shaqeeyo dalka Soomaaliya sida horumar loo gaarsiin lahay in laga wada shaqeeyo sidii message wanaagsan oo dalka loo gudbin lahay qof kasta Soomaali meel baa ku sugan yahay dalka dadka u shaqeynaa in message-keeda la gudbiyo telefishinada raadiyaasha waa in la soo saaro waxyaabo wanaagsan oo horumarka dalka ka shaqeynaa waa in laga hortago wixii dalka burburinaa waxa kaloo si gaar u baaqa runtii barnaamijyada gobolada degmooyinka tuulooyinka meel kasta barnaamij fiican ka socda mid caafimaad ha noqdo mid waxbarasho ha noqdo mid kale horumar ha noqdo arrimaha bulshada in la soo gudbiyo oo arrimaha xasaasiyadda keena runtii laga fogaado qof Soomaaliya oo meel jooga oo hal cunug oo Soomaali sponsor gareeya hadii la helo waa in la soo gudbiyo idaacadaha la tuso barnaamijyada cadawada in laga fogaado runtii waxaan dhihi karaa miidiyaha qayb weyn ka qaadan karaa dalka in cadawga laga xoreeyo intaasi kadib ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow waxa uu kormeeray raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale kaydka qaranka kuwaas oo u kurgalayay sida hawsha warbaahinta qaranka ay u socoto